haweenaha ku dhaqan degmada Qorlugud gobolka Bohol ayaa ka mudaharaaday isla markaasna ka gilgishay shaqo joojinta lagu sameeyay Dr. Qadan Siciid Nuur Qorbaxay oo mas'uulka ugu sareeya xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Qorlugud kadib markii lagu eedeeyay inay u ololeysay waqtigii xisbiyada dalka kambeeyga ku jireen haweenka gudoosan ayaa ku tilmaamay inay tahay Dr. Qadan Siciid shakhsiga Ilaahay ka soo koob la baxsaday dadweynaha ku dhaqan degmada Qorlugud waqtigii uu ku absaday xanuunkii shuban biyoodka iyadoo hablaha ka howlgala xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Qorlugud haddaanu nahay degmada Qorlugud haweenka Qorlugud kuwa dhalaya iyo kuwa uurka leh iyo kuwa waaweyn ee maxaa dhacday ka horeeyay ee magaalada deegaankeeda ah waxaanu sheegaynaa caafimaadku meel uu jiro iyo meel uu joogo marka hore caafimaadka meel uu joogo waxaanu leenahay hambaliyo mar labaadka waxaanu u sheegaynaa inanta Qadan Siciid Ismaaciil inay tahay waxaanu cadaynaynaa markii abaaru yimaadeen ee cudurku yimi haddaan hablahaas joogin inaan ragna dumarka xilkooda ka bixin Ilaahay baa ka xil bixi lahaa hablaha maanta dambi uma naan qoodayn dalacaad baan u qoodaynay hablihii bahda caafimaadka ee halka joogay ee noo yimi ee noo shaqaynayay haday xagga dhalmada tahay haday xagga tahay maxaa dhacday caafimaad waxaan ku leenahay wasiir adiguna waad mahadsan tahay magaalada wixii dambiga ku soo gaarsiiyay qooriyo xaraara tahay waa la is wada laalaasanay Ilaahay baan kugu dhaarinay oo Ilaahay baan kugu dhaarinay ha qarinin dadkii beenta ku keenay ee inanta ka been abuuray ee eedeeyay haddaanu haweenkii Qorlugudnay waxaanu leenahay waa been ma dhici karto na dacwo miyaa ka qabtaan ma dhici karto inantayada Qadan ee xanaanada nooga ahayd madaxda ee joogtay waxa weeye nafaanu dhaafsan karno mid cusub iyo mid hore u joogay mid aanu dhaafsan karaa midna ma jiro inantaasoo aad bay nooga shaqaysay magaalada intii inantaa la keenay ayay magaaladu shaqaysay xanaanadu shaqaysay caafimaadku shaqeeyay nolosha aanu ka tirsan aanu nolosha wax ka soo gal intii hore nolosheeda waxba u dhinaa waxaan u sheegayaa wasiirka caafimaadka Saleebaan Ciise Xaaji Axmed Kaar waxaan leeyahay wasiir waad mahadsantahay dadeentii noo soo celisay aad annaga saaka kacdoon weyn baa jira magaaladeeda mudaharaad baa ka dhacay halkan aan taaganahay mudaharaadka intii aan isla muhiimiyada ugu dajisan yihiin baanu halkan keenay ku hadlaynaa dhalaydii 3 casho meesha way naga xidhnayd ilaa maalintii talaadadii way naga xidhnayd intaana waxay u xidhnayd mudaharaad Qadana bay u xidhnayd walaa Qadan walaa maxay haytay amuun walaa mid kale midna ma ogolin in laga bedelo meel cid kale in loo soo bedelana ma ogolin inantayadina sidii naloogu soo cesho waxa ka jirta maaha kuma qanacsan hadaan nahay deegaanka Qorlugud waa boorabagaande waa wax la sameeyay waa waxaan jirin miyaynu ku qanacsanahay hadaan nahay deegaanka Qorlugud miyaynu isku raacnaa Qadan maanta darajaanu la doonaynaa si wacan baynu ugu shaqaysay Ilaahay ha darajisiyo wasiir ama sheekada hadaad ka noqotay waan ku qanacsanahay geesta kale xildhibaanada golaha deegaanka Bohol ee gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Qorlugud uqaasha deegaankaasi ka soo jeeda ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado in Dr. Qadan Siciid Nuur Qorbaxay loogu abaalgudo in shaqada laga joojiyo iyadoo la ilaaween waqtigii xanuunka shuban biyoodku ku dhacay degmada Qorlugud qaybtii lixaad kale ee ka soo qayb qaadatay wartaan ku hadlaynaa waa degmadii Qorlugud anoo ah xildhibaankii golaha deegaanka ee Bohol Axmed Xamdulla Muuse hawsha waxaan u cadaynaynaa isuduwaha Togdheer iyo wasiirka caafimaadkaba xagla toosiye in hawshaas been tahay oo been abuur tahay oo bahda caafimaadka degmada Qorlugud hadaanay joogin diraacdii dhawad markii xanuunku dhacay aan dadku waxba ka hareen arinta hadaanu nahay degmada Qorlugud aad baan uga xunahay hablihii aan caafimaadku nooga horeyn iyo bahda caafimaadka oo dhanba in la dacweeyo oo dacwad waliba aan raali ka ahayn lagu dacweeyo aad baan uga xunahay hadaanu nahay degmada Qorlugud iyo mas'uuliyiinta degmada Qorlugud waxaan u sheegaynaa cid kasta qusayso iyo wasiirka caafimaadka gaar ahaan wasiirka caafimaadka inaan arinta noocaas ee arinta lagu soo eedeeyay Qadan la yiraaho gaar ahaan Qadan Siciid inaan wax laaliyo wax ka jirin waxba kama jiraan hadaan nahay uqaasha degmada
odayaasha degmada xildhibaanadooda kulli ahaanba arrintaa haddaan hoos ugu daadegnay oo u baadhnay waxba kama jiraan inantaas waa iyo hablaha kaleba iyo inanta kale waa hablo ka adag shaqadooda waa hablo degmadu ku kalsoon tahay wasiir waxaanu kuu sheegaynaa kutulkuteenkaa ku soo gaadhay waxba kama jiraan adiguna haddii aad ka noqotay aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa ayaa la iga ducaalay telefishinka caalamiga ee bulsho degmada Qorlugud Buuhoodle.